ku safarka cirka ayaa ah mid ay dadku dhammaanba ay wada jecel yihiin sababtoo ah uu ka dhaqsiyo badan yahay safarka dhulka. Diyaarad la waayay oo kadib 35 sano dib u soo laabatay. diyaarad nambarkeedu oo ahaa 513 ayaa si nabada safarkeedii waxa uu uga bilowmay magaalada Aachen ee wadanka Jarmalka sanadkii 1945. diyaaradda waxa saarnaa 92 qof oo rakaab ahaa kuwaas oo ku socday Santiago. diyaaraddaas ayaa duulimaadkeedii waxa ay ka bilowday magaalada Aachen ee wadanka Jarmalka. daqiiqada kadib waxa si kidisa ugu ay dhammaanba xidhiidhkii lagula socday diyaaradda iyadoo maraysa badweynta Atlantiga. gebi ahaanba hal mar ayaa waayay diyaaradii oo raadaarkiina ay ka luntay. diyaaradii 513 gebi ahaanba meel jaan iyo cidhib ay dhigtay waa la waayay. waxay noqotay arrin aad iyo aad u la yaab leh oo dhammaanba fajac gelisay dadkeena. intaa kadib waxaa la bilaabay baaritaano aad iyo aad u fara badan si loo helo burburka diyaaradda. xitaa waxaa baaritaan badan lagu sameeyey badweynta Atlantiga, laakiin wax raad ah haba yaraatay lagama helin waana la waayay. xitaa jab yar oo caddaynaysa inay burburtay diyaaraddaasi lama helin. intaa kadib waxa dhacday in dhammaanba dadkii ay yidhaahdeen diyaaraddaasi waxay ku burburtay hawada iyadoo halkaa ku qaraxday. waana laga quustay dhammaanba dadkiina way iska ilaaween. waxaa ka soo wareegtay sanado aad iyo aad u fara badan 35 sano kadib. haddaba maxaa dhacay? taariikhdu markay ahayd 1989 airportka dalkaas Brazil, raadaalku waxa uu soo qabtay diyaarad aan hore loo ogeyn meeshay ka imanayso amba ay ka soo duulayso. runtii way ka shakiyeen diyaaraddaas ku dul meeraysanaysa airportka oo rabta inay soo caga dhigato. shaki weyn ayaa wada galay howlwadeenadii garoonka. isla markiiba waxay wargeliyeen booliskii si loo adkeeyo amniga garoonka. kadib go'aan waxay ku gaadheen in ay sugaan intay diyaaradani ka soo degayso. dhammaantoodna goobtaas way ka fogaadeen si ay u ogaadaan diyaaraddan meeshay ka timi iyo cidda wadaba. haddana dhammaanba dadkii joogay airportka waxaa ka sii yaabisay dhacdo kale. qaabkay diyaaraddu u samaysantay iyo siday u egtay wuxuu ahaa mid qadiimiya oo beri hore la isticmaali jiray. si kastay ahaataba waxay siiyeen jaanis ay ku soo degto diyaaraddaasi. waxay u soo fadhiisatay oo loo waday si qurux badan oo haba yaraatee wax qalad ah ku jirin. markii ay soo caga dhigatay diyaaraddii ayaa gebi ahaanba waxaa la waayay cid ka soo degta iyo cid la soo xidhiidhaba. wax shanqadh ahba waa laga waayayba diyaaraddii. intaa kadib waxay go'aansadeen inay diyaaraddan gudaha u galaan soona ogaadaan waxa jira iyo cidda wadayba diyaaraddan. markii ay sidaa u galeen ayay waxay arkeen arrin mucjiso ah. dhammaanba rakaabkii diyaaradda saarnaa waxay ahaayeen kuwo qalfoof ah oo beri hore naftu ka baxday. arrinta cajiibka leh ee ka sii yaabisay ayaa waxay ahayd iyagoo dhammaanba qof kastaaba uu fadhiyey kursigiisii isagoo xidhnaana suunkiisii. sidoo kale duuliyihii diyaaraddan ayaa wuxuu haystay shookaanta laga wado diyaaradda isagoo laftarkiisuna uu ahaa qalfoof. 29 qof ee diyaaraddan saarnaa dhammaantoodba waxay ahaayeen dad qalfoofa oo beri hore naftu ka baxday. diyaaraddan markii ay ku sameeyeen baadhitaan badan waxay ogaadeen inay diyaaraddani tahayba mid la waayay 35 sano ka hor oo imika dib u soo laabatay. haddaba diyaaraddan yaa waday oo dejiyey? dabcan su-aashaas waad isweydiinaysaa. 35 sano oo dhan diyaaraddani xalkii ayay ku maqnayd, sidoo kalena shidaalka xalkii ayay ka heli jirtay. su-aalahaas waa qaar maskaxdaada ku wada wareegaya. sidee diyaarad beri hore luntay u soo noqotay? kuwani waa jaraa'idadii laga qoray wakhtigaas qisadeeda oo dhammaystiran. waxaad ka helaysaan YouTube-ka, Google-ka iyo meel kastaba. haddaba sheekadan amase qisadan la sameeyey sannado badan ka hor waa mid mala awaal ah gebi ahaanteedba oo aan suuragal ahayn dhici karaynina. sheekada diyaaraddan 513 waxay ka mid tahay kuwa loogu hadalhaynta badan yahay social mediaha iyo qof kastaaba uu ka sheekeeyo dhacdadan. waa mala awaal dan gaara laga lahaa, laakiin ilaa imika lama oga sababta sheekadan loo sameeyey iyo ciddii ka dambaysayba. adiga laftirkaagu sheekadan hore ma u maqashay? sida oo kalena fikirkaaga nala wadaag. ma mala awaalba mise waa dhab? waad ku mahadsantay daawada haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalkan. waa anigoo ah Nadra Saciid. fadlan muuqaalkan like ha ka ilaawin. ma tahay shaqadoon? ma doonaysaa inaad beddesho noloshaada? ma doonaysaa inaad hesho dakhli joogto ah? ma doonaysaa inaad noqoto tusaale lagu daydo? haddaad tahay qof han iyo himilo leh doonayana in uu wakhtigiisa ka faa'iidaysto, isbeddel weynna noloshiisa ku sameeyo, haddaba nagu soo biir oo ka mid noqo xubin ka tirsan shirkadda weyn ee caalamiga AG Nutrition Transforming People. ka samee dhaqaale badan adigoo gurigaaga jooga. sida oo kalena qaado bil kasta mushahar joogto ah.
AG Nutrition waa kombani Islaamik ah oo laga leeyahay dalka Malaysia kuna sahlaya in aad hab online ku shaqaysato haddii aad tahay qof doonaya inuu noloshiisa bedelo haddaba nagala soo xiriir WhatsApp nambarka shaashada ka muuqda AG Nutrition, transforming people. AG Nutrition, transforming people. AG Nutrition. Welcome to AG Nutrition. You can believe your mission and vision.